ummadda la dhex dhigay oo diinta lagu burburiyo oo dhaqanka lagu burburiyo oo dad ahaan loo burburiyo oo si walba bahdilaad nooga ah annagii caadiga ahayn haddaan qabyaalad la limaadno markaa wax fiican ma aha dawladda Itoobiya isiga dameeyay waxaad moodaa inay cadaawad annaga noo wada xambaarsan yihiin annagu Soomaalida san cadow nagu leeyahay ilaahay un baa noo gargaaramoyo dad wax u tabcada ma nihin hadda waa reer waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed wuxuu reerkiisa ka hela oo anigu aan ka waaya ma jirto saan aaminsana wallahi aan aaminsanayn kuwa asaga adeer u yahay oo aniga annagu aan isku mid lahayn isku gurino isku qoysnaha jiro oo haddaan qadana ila qado haddaan dhergana ila dhergo galkaayo iduu samaree miyaadu ay ka saaran tahay fiisa ku galaysaa sida aawad ku farax oo annaguna aan ku wada faraxna hadday ayagu wax helaan haddaan wada helnana aan ku wada faraxna anigu waxaan kala leenahay ma aaminsana sida asan marka ku taageeraya meel kasto laga qodo ama hobyaha laga qodo ama berberaha laga qodo ama ceelayaha laga qodo ama laasqori ha laga qoro ama baydhabaha laga qodo ama kismaayaha laga qodo meel kasto guri Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed degan tahay oo ceelshada laga soo saaro horumar aan wada gaarnay anigu guriga aan deganahay laga soo saaraan ka aaminsanahay Soomaalidu xitaa hadda dila fiirsho waa ku isku dila ceel biyood oo biyo laga dhaansaday marka maanta Soomaalidu shidaal loo qoday sidee kula waxa keenay inay isdilna waa baahida iyo haraadka ma kula taaqli macna inaan isku dilayna ma fiiro dilkeena aan isdilayna wuxuu xambaarsan ma fiiris baahida iyo haraadka way waxaan isku dilayna dhalinyarada la adeegsanayo maalinta ay ku dilayaan $10 baa la siiyaa $10 buu kugu dilayaa baahi baan u geysay hadduu wuxuu cun helay mid ku dilay bay kulata qori ma loo dhiibaya bay kulata shidaalka in la qodo danteena ku jirto dhalinyarada Soomaaliyeed qoryaha inta loo dhiibay $10 kugu dilaya ayaa la weynaya bari cad la adeegsadaa la weynaya okay cabsida markii shisheeyaha hadda ka waran Itoobiya oo kaleente saakay waa wadna qabad ay ku noqotay arintan wallahi Itoobiya marna wax horumar oo gaarnay inay ku farxayso ma aaminsanay dawladda Itoobiya isiga dameeyay waxaad moodaa inay cadaawad annaga noo wada xambaarsan yihiin annagu Soomaalida san cadow nagu leeyahay ilaahay un baa noo gargaaramoyo dad wax u tabcada ma nihin laakiin maadaama aan dad islaam nahay ilaahay nasrigiisa ayaan dunida ku joognaa sida aawad marka waxaan aaminsanahay meesha laga dhismi karo oo wax lagu noqon karo oo wax lagu ahaan karo waa Soomaalinimo wixii ka yar weel ka yar ninkii wax ku shubtaa aakhirka gaajo u dhimanaya iyo xanuun annagoo dhan adiga Suuriyaha iyo aniga shakhsiga ah dhammaan dadkeena waa inay Soomaalinimada deeqda ee aanan u arag in cid gooni wax loo wado ee aanan u arag cid gooni Xasan Sheekh hadda waa reer waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed wuxuu reerkiisa ka hela oo anigu aan ka waaya ma jirto saan aaminsana wallahi aan aaminsanayn kuwa asaga adeer u yahay oo aniga annagu aan isku mid lahayn isku gurino isku qoysnaha jiro oo haddaan qadana ila qado haddaan dhergana ila dhergo dadku marka waxay aaminsan yihiin ba haddii nin reer hebel meel tagin reer hebel durduuranaya warbaasha annaga wajaara ka ah annaga ku soo gubino wiligeed meel ka tagin 60 sano ku dhex gaarnay dadka Soomaaliyeed ma anfacaysa qabyaaladii reer hebel waxa anfacaya Soomaalinimo dadku waxa ku qafilan galmudug laga qodo haday maqleen buu wixii xumaado u fahmay wallahi oo billahi galmudug in laga qodo waa gurigaaga galmudug ma meel bay ka jirtaa ma adi sababa laga qodaya galmudug waa gurigaaga bari meesha laga qodo ana xamaal u doonanayo reer galmudugna mi cid iga xigtana ma jirto cid ka soo joog dhigi kartana ma jirto galmudug waxa laga qodo anigu waa gurigaaga boosaaso kan laga qodo waa gurigaaga baydhabo kan laga qodona waa gurigaaga meelaan Soomaaliyeed ma laga qodaya anigu nin Soomaali ahana meel Soomaali leedahay oo xuduudiga saaran yahay ma jirto marka xiligan shidaal la qoday marka qabyaalad iyo hebel ay hala reebaa leedahay anigu waxa la yaa sideedaba qabyaaladda ay dad u soo shaqaday dad waxa jira Yahuudi ay maalgeliso YouTuberada ay weeyihiin oo Soomaalida kala dila diiniyan hataa cunmada inay fadmo ka soo saartaan la rabo waa fidna ummadda la dhex dhigay oo diinta lagu burburiyo oo dhaqanka lagu burburiyo oo dad ahaan loo burburiyo oo si walba bahdilaad nooga ah annagii caadiga ahayn haddaan qabyaalad la limaadno markaa wax fiican ma aha anigu marka waxaan leeyahay Soomaali baan nahay nin kasto Soomaali wuxuu leeyahay leeyahay miyaadga ma garanaysaa lugsadaa inaad marka galmudug baa wax layo hebel baa wax la taasi ma jirto ilaahay ha noo barakeeyo waxaan helnaa ilaahay boqorkaana ha nagu imtixaanadaan leeyahay